mudan gudoomiye batroolkan in la qodo lana wada qoto waa loo baahan yahay laakiin in Soomaaliya diido Puntland diido galmudugna iska qasantaa hadda koonfur galbeedna meesha la yiraahdo Jubbaland diido qaarna maxkamadda uu jiro saaran yahay sidii lagu ogaayna qayladiisa ay ka duwan tahay oon ka baqayno in waxmahaas ay ka jiraan waxa la qodi rabo oo loo degdegayo oo warqadaha loo suubsahayo oo la beecgeeyayo oo bowdaca oo kalluunkeedana bowdacaya canshuurteedana canshuur daca ay tahay badda airportkeeduna dacaya dekedeeduna ay dac tahay waa reer Hirshabeelle Muqdisho reer Hirshabeelluhu badda waa kala xigaa aniga waardiyaan xaaris carabiga Soomaalina waardiyaan waardiyihii la saaray waxaan arkaa dad inay u woodi rabaan oo gacantu taagi rabaan waxoodina ay u xaniban yihiin waxaana ay helaan bay rabaan cabaad ayaanay leeyihiin waa in la hirgalsho waa in la waxeeyo waa in la boobay gudoomiye arrintan wasiirka wax badan oo ka farxiyo arka laakiin ka farxima warqado loo sameeyo adiga mid u saxiixdo midna aqalkaas kale aqalka shacabka u saxiixo midna madaxweynaha u saxiixo midna ra'iisul wasaare oo baleenka kale jiro u saxiixo oo lala wareegay shirkado balaayaha shida kale ya lacag looga qaato ayaa meesha laga rabaa dawladda xoog leh oo batroolka qodayo oo hantidayna damaanad qaadayo uma jeedno dooman aan ku ilaashana wax kale iska leeyahay ma qabno bariiskii iyo baastadii iyo wixii yaraayo loo soo gudbihaya maraakiib islaameed soo gudbisa badayna kalluunkiisii ilaasho weyn batroolka ilaahay noo ilaasho wuxuu noogu jiraa badda ka hoos ku jira burcad badeed oo caadi ah bariis dhaysa ilaahay weyn marka burcad batrool ilaali ma karno waxaan qabaa arrintan dawladda xoog leh oo dawladaha la yaqaan oo damaanad qaadi karo halala sugo haddii san loo degdegayana warqado shirkadaha lagu wareego oo loo saxiixo wasiirkan loo gudbiyo ana mahadsanid. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.